إله سبحانه وتعالى وحكم لي ويمددكم بأموال وبنين إله وحكم سينا يا مال إيو ويلل قفك استغفرت بدي إله وحكم سينا يا مال كاس إرهادنا يان ومد آد أفر بدن والله مرايو حرام إيا حرالبو إله استغفرت أد بدي سوحكم سينا يا مال وكذلك استغفرت أد بدي سوحكم لنساء ويلل وحانا ماشا سكاب بحيسو ilmaha wadooyin fara badan oo ilmaha ku raadin lahayd oo laga yaabo inaad dhibaato badan u mari lahayd ama lacag aad fara badan ay kaaga bixin lahayd ayaa istighfaarta oo badiso ayaad ku helaysaa istighfaarta saad u istighfaarsanaysaa in badan oo dad kamid ah ayagoo socdo ayagoo ma taqaanaaye qaflad ku jiro dad u sheekeynayo ayuu wuxuu qaadanayaa istighfaar waxaa la rabaa qofka bilaadanka waxaa laga rabaa ta'adub inuu ka adab qaatay ilaahi caza wajal سو إله هذا أدب قادناها وحد إله هذا أدب قادن الساعة هذا هو يسقوا قبل ذا وجوستي جمعها كله تاجي هنا إله سبحانه وتعالى برد هذا أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه هذا هو ما تقانا معنيه كنت دبرايه وفهمه استغفرت أنت دم بسوبسه هذا ناس استغفرته وح ونكسر أما التأذب إلى الله كمد أمهم وحال الروح بلادك إنه إله سبحانه وتعالى وكحشون سيدات إله وحشون إساء إله وحضا وحشون إساء إن مركي آد استغفارسته آد جوسته إن آد ذنوب تأنك أحب حضا أستغفر الله وحانا عني أنقصو شغنا حلقة لنبركي ذكوبات إن أيتهي إن آد إله كعد سنيسو دنبي داف marka dambiga aad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka codsato inuu kuu dhaafo waa in aad ka siimato ama aad ka dhexbaxdo istighfaartaas calaa wajhi lmadluub sida loo baahnaa markaad oo la imaado ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu ilaahay qofkaas iyo annaga dhan noo dambi dhaafo ilaahayna subxaanahu wa tacaala miraheedii uu qofkaas siiyo استغفارته وحان شيغني إن لو هلايو أود وحان شيغني إن لو هلايو الماء وحان شيغني إن لو هلايو رب وحان شيغني إن لو هلايو مال فإذا أنت تكون وقفك بلادك ودونواتك مركا وحالنا هاي فإذا الدنيا آخره halkaas ayay ku soo aruurtay aan u degdegno ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay falyatanafasil mutanafisun kuwa tartamaya oo tartameeno marka diinta waxa ku jira faa'iidada dunya wal aakhirah faa'iidada adduunka iyo faa'iidada aakhiro qofka waxa laga rabaa muslimka markuu istighfaarta la imaanayo kanaaye labaad waxay noqonaysaa ikhlaas inay toobada tahay tooba ilaahay dartii oo toobo mukhlisiina lahu diin subhanahu wa ta'ala kuwa diintooda ay tahay diin barax tiran waxaa la rabaa inay tahay toobada toobo barax tiran oo ma taqaanaaye aanu ku jirin wax istutusay ama wax kale lagu doonayo توبة مركي نقطة توبة إخلاصه إلى إله سبحانه وتعالى أدخل البطو دم بداف قلبي هذا الأصوح هذا الرسول إيوه حبنا هذه وحين نقول إنسان توبة إخلاصه عند كل علس ضد كنت هذا بدهم حسوا برايم أيوة ما تقارنا قلبي وذي مغيهاي حبنوه دي جوجن وحكى لا إسكا هيستان أي استخبارته وضايا وحال الرباح حبنا هذه إن صوتي يعرسه أو عمل قعمه هذا هذا أستغفر الله وأتوب إليه لأنه حق عد سنسا إلهي ما ذكر عد سنسا وحوين هذا عد سنسا يقين أضوه هيسو ورب إله سبحانه وتعالى وحان إنه إله يكون بدافع أضب وأمنته لمبركا صدحات أما شرط صدحات وحاول عدم الإصرار على ذنبه
inaad mataqaanaaye inaadna siraysanin dembiga iyo inaad ku celcelinin dembiga in aad mataqaanaaye siran wajahran kor iyo hoosba inaad ilaahay subxaanahu watacaala aada dembiga mataqaanaa ka fogaato aadna ku celcelinin. shardiga saddexaad wuxuu noqonayaa in aad raacdid istikfaarta. maxaad raacinaysaa? cibaadaad baad raacinaysaa iyo camallo wanaagsan, cibaadaad, camallo wanaagsan, sadaqaad iyo acmaal saalixa oo wanaagsan oo ilaahay u jeceli, sida dadka u kaalmayso mataqaanaaye sadaqaadkood baxsato. lianna asadaqatu tudfiu qadaba rabbi, sadaqada waxay daminaysaa carada ilaahay. iyo cadamu taqsiir bilfaraa'id, iyo inaadna wixii farad lahu ilaahay mataqaana kugu farad yeelay sida salaada iyo soomka inaadna mataqaana yaraysanin. taqsiir maxaa waay? waa inaad yaraysanin ood mataqaana ihmaalinin ama mataqaana aad dayicin ayaa laga rabaa. waa shardiga shanaad wuxuu noqonayaa lambarka shanaad wuxuu noqonayaa in aad mataqaanaa gudato dadka xaqooda, aada dulmigana ka kor qaado, qofkii dulmi lagu hayana aada ka kor qaado oo mataqaanaa dad kiciliso daawr dulmiga qofka ka daayo. ama haddaad ba aada dulmi ku haysidba aad dadka dulmiga ka dulqaado, xaqa wixii xaq ugule-ana inaad xaqooda gudato. haddii aada gabar tahay, xaqa koowaad waxaa kugu le waalidiinta, ninkaadi, ciyaalkaada xaqooda gudo. hadduu nin yahay islaantaada, ciyaalkaada, waalidiinta, qaraabadaada xaqooda gudo. qof walba soo dadka say wala xaq leeyihiin, qof walba waxaa siisaa xaqiisa si. lacalla hadda nin baa ku qabo xaqiisa ma gudanaysid, wuu kuu xanaaqsany, malaa'igta baa ku nacladayso, xageed istikfaar ka helaysaa? miyaaya istikfaar baa laga kow ninkaada raaligeli. lianna islaanta intuu u caraysay wadaadkeeda malaa'igta ayaa lacladayso, 7 samood ayaa laga lacladaya. marka waxaa la rabaa inay noqoto qof waalidiinteed raaligelisay, wakadalika zawjkeeda raaligelisay. wakadalika nin baa tahay, waalidiinta baa ku caraysan, xageed istikfaartaada laga aqbalaya. in aad mataqaanaaye shardiga shanaad baa ku jirnaaye in aad u gudato faraa'idkaas, aadna gaabinin, aada u gudato wejiga ugu fiicnaa, sida ugu qurxaneyd. salaada oo kale laaqimay xilligeeda tuko, soomkii sida fiican u soom, mataqaanaa zakadii si fiican u bixi. soomaali xajkii haddaad lacag haysata aad hay midda mataqaanaaye midda lixaad waxaa weeyo in aada suubiso iltizaam adab maca allah, inaad laazimto inaad ilaahay ka adab qaadato subxaanahu watacaala. sida uga qaadanaysaa fi dalab اlistikfaar, inaad ilaahay subxaanahu watacaala adoo diyaarsan, hagaagsan. ilaahay subxaanahu watacaala in allaha jamaal, ilaahay waa quruxsan yihi, yuxib اljamaal. adoo dhar qurxan qabo, issoo hagaajiyey, salligii meel fiican dhigtay, meel buuqla-aane fadhiyo, ilaahay subxaanahu watacaala isku duleynaayo oo tadarucayo, gacmihii kor u hayo, ilaahay u istikfaar dalbo. intaana shuruud markuu qofka 6dan shardi u suubiyo, waxay noqonaysaa istikfaartiisa istikfaar saxiix ah, qaabkii loo baahnaa ah. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa annaga iyo muslimiinta dhanbo inuu noo dembi dhaafo. وأختتم إن شاء الله تعالى من مقولتي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.